السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhamaan intay daawanaysaa iyo inta kaleba waxaan idinku soo dhaweynayaa runtii cashar yar oo aad u kooban kaasoo ah wax loo yaqaano virtual box ama virtual machine sida loogu shubo sida ma garanaysaa server ahaan loo soo geliyo runtii inta yar kooban ma jeclaada inaan ku soo dhawaado halkan virtualkii halkan uu ii yaalaa sida wada arkaysaanba halkaas aniga ii yaalaa adigana halka ku yaalo ayaa doonanaysaa ama aad tagaysaa marka aniga waa halka ii yaala deetana right click ma siinaya run unban leeyahay deetana run administration ama open labada ka jeceshan baad samayn kartaa labadaba waa sun waad ku shubaysaa wuu leeyahay waad oranaysaa okay iyo buu maqnaanaya iska sugaynaa wakan preparing buu diyaarinayaa waa ka diyaariyo welcome to the wuxuu leeyahay Oracle VMware Virtual Box 6.0.2 alif setup waad ku shubaysaa wuu leeyahay next baad oranaysaa آخركي وحكولي ما تخشوا تيسا هذا أنا صار process كوني بلا process with installation now تتنيس بالله كده محاسين نسا install ونسكسو قلنا انتايرو عرين وكاي نو دميي تتنم حالة هاي finish runtii waa kan isaga automatic noo soo kacay halkan waxaad ku arkaysaa inay qaar hore ku jireen ICT evening iyo alpha ICT markaa waxaanu samaysanaynaa inagu qayb in noo gaaraa oo aynu magac la baxayno haddaba sidii loo sameeyaa file baad tegaysaa file markaad tagto waad ku dhufanaysaa privacy tegaysaa okay network baad tegaysaa ugu horeynta waxaan abuuraynaa waxa loo yaqaano network machine ugu horeynta kaasaan abuuraynaa kadib waxaan sameynaynaa uu noo samaysan yahay inagu mid labaad baan doonaynaa kan waa midkii hore oo kuwan imika samaysanay xaggan labada yaala weeyaan laakiin ma mid cusub aan samaysanaa waxaynu tegaynaa taas oo ugu sareysan jeeda waxa ku qoran add a new net deetana add a new net waxay noo sameeyay xagga hoose noo dhigay waxaan leenahay edit deetana halka hore waxaan ka raacinaynaa my network 1 baan oranaynaa maadaama mid hore ku jiro halka 1 baan ka raacinaynaa IP addresska u kaalay xaggan IP addresska wada arkaysaa waa filayaa iska masax waxaas 192.168.1.0.1 markaa dhodiir keli .1.0 okay sideeda okay dawsi deetana okay dawsi inta markaad okay dawsiiso halkan waxaa ku qoran new maxaa ku qoran halkaa new kala ku dhufo deetana halkaa waxaad saxdaa tutorial deh micnaheedu waa inagan baa iskala baxnay si ay kuwan uga duwanaato ayuun baan tutorialka ula baxnay yacni cashar weeyaan tutorial video muuqaal sidaa daraadeed ayaanu la baxnay tutorial halkan waxaad timaadaa windowska kugu jira aniga waxa igu jira imika sida halka ka wada arkaysaanba Windows 10 bay igu jira Windows halkan sida kaaga cad maxaa kugu jira Windows 10 adna hadhow Windowska kugu jira halkan ka dooranaysaa
okay Windows 10 bay ku jiraa Cisco maxay tole 164 computerkaygu 64 bit operating system kiisu weeyaan okay deetana halkan aad tegeysaa 64 Windows 10 waad ka eegaysaa waa kaas ugu hooseeya halkan versionku ku qoran yahay waxaa laga yaabaa inaanu kusoo saarin adiga Windows 10 64 I mean waa kaas kii hore other buu ahaa waa kaas ka muuqda Windows 10 64 bit halka hadaanay adiga ku ahayn 64 runtii waxaa sameynaysaa BIOS kaga soo kicinaysaa advanced ka tegaysaa technology virtual technology ba waxaad kasoo dhigaysaa enable ama tigta soo saaraysaa haddii disable ka tahayna enable baad kasoo dhigaysaa haddii aanay tigta ku saarnin kombiyuutarada waa kala version u yihiin qaar boasi qaar tig bay isticmaalayaan oo dota qaar maxay tolay enable iyo disable bay isticmaalaan sakaygan oo kale imika wuxuu isticmaalayaa enable ama disable hadduu disable ka yahayna enable kasoo dhigo hadduu maxay tolay dot tahayna dot ka soo saar okay next one leenahay halkan waxa weeye waa memory size kaaga anigu memory size kayga waxba kama bedelayo sidiisa ku deynaya 2480 weeye halkan aad ka arkaysaa waxaad ka arkaysaa 24 soma next baad ku dhufanaysaa next markaad kusii dhufato waxaad sii sameynaysaa waxa kale sii dooranaysid haddana next baad kusii dhufanaysaa kadib markaad intaas sameyso waxaad leedahay haddana create dabeetana wax la taabamaysid waxaad odhanaysaa next waxaad iska odhanaysaa next okay wakaa inoo sameysmay aakhirkii halkan maxaad ku arkaysaan tutorial okay right click baad siinaysaa mouska dhanka midig deetana maxaad odhanaysaa setting ka markaad tagto waxaad kasii tegaysaa storageka markaad tagto waxaad sii tegaysaa empty barta ay ku qoran tahay halkaa maxaa ku qoran empty kadib waxaad sii tegaysaa ishayar markaad tagto waxa kusoo furmaya boxkan yar kadib waxaad sii tegaysaa choose virtual optical disk imika waxaynu damcaynaa inaynu kusoo shubno ama doonaynaa Windows serverkii inaynu kusoo shubno aniga bartaasuu ii yaalaa adiga meeshuu ku yaala doono hadday desktopka tahay hadday meel kale tahay aniga imika halkaasuu ii yaalaa magaciidii igu jiray aan ku noqdo halkii hore ii yaalay waa kaa adiga oo dhan meesha ku yaala doonanaysaa haddii desktopka iyo desktopka dabeetana maxaan leeyahay open markaan sii yaado maxaan sii odhanayaa okay markaan idhaahdo maxaan sameynayaa start baan odhanayaa start markaan siiyo insha Allah waan soo sugaynaa in yar buu maqnaanayaa waad arkaysaa inuu soo baxay Windowskii deetana halkan maxaa ku qoran next ku dhufo waa sidii Windowska caadiga marka lagu shubayo install okay starting with installation fiis bilaabay okay graphic user interface baad dooranaysaa Windows Server 2000 standard evaluation server with a graphic user interface markaad doorato next baad odhanaysaa accept baad odhanaysaa listen terms ruudahaaga waa ogolaaday next baad odhanaysaa customize baad odhanaysaa ma odhanaysid upgrade ma odhanaysid halkana wax partition oo ma sameynaysid next baad iska leedahay okay imika wuu bilaabay waad arkaysaan waan iska sugaynaa ilaa intuu dhammaanayo
okay inoo dhameeyey ilaa hadda wakaa dhameeyey automatic buu sawir star isku diray isagaas wada waxaan iska xidh idmkii isagaa isa soo siraadaya soo shidaya server Windows server waad arkaysaa wuu inoo dhamaaday kadib password keli uu ku leeyahay waxaan gelinaynaa 1 2 3 ASDF shift iyo 1 wala aynu aragno waxaan gelinay markaysaa 1 2 3 ASDF shift iyo 1 isla markaana ku celi haddana intii si loo hubiyo inay intaas hore iyo intan ay sax yihiin isku mid yihiin 1 2 3 ASDF shift iyo 1 kadib maxaad leedahay next finalize your setting saas ku leeyahay waad arkaysaa wuu inoo dhamaaday shashadaas hadeer waa serverkeeni iska xidh halkaasina maxaa ku qoran shift alta iyo delete marka hore intaanad tegin waxaad sameynaysaa device-kaasay tegaysaa waxaad kusoo daraysaa my input-kaasay tegaysaa ujeedaa input-ka keyboard-kaasay tag dan waxaad kusoo daraysaa enter control alta iyo delete wuxuu ku weydiinayaa passwordki muxuu ahaa 1 2 3 ASDF shift iyo 1 interesting in yar baan sugnaa
haddii saasaynu ku galnay serverkeennii aynu ku jirnaa xogaa computerka ayaa culus culayskaas xaggaas ka imanayaan waad arkaysaa marka waxaan aniga waxaysiis iska xidh maaha xaggaaga okay markaan maxaad ku arkaysaa saacad cusub iyo network iyo battery iyo wixiiba markaan maxaad ku arkaysaa taskbar iyo netole okay waxay noo soo kacay server managerkii iska sugna inta uu soo baxayo okay baatan kan doonayna maxaad haysataa Windows server 2002 okay dashboardkiisii toolskii waa kaas markaasaad kaga soo diraysaa active directory-gii intaana waad garanaysaan baan filayaa haddii loo baahdana insha allah waan kasoo samayn doonaa laakiin sidaasuu ku dheeyahay runtii marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad idinkuna sidaas si lamid ah aad u samayn doontaan ciddii ku adkaata wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baad u mahadsantihiin